dareen ahaan ma cabiri karo wixii ay indhahaygu qabteen sababtoo ah horay uma aaminsanayn inaan la kulmi doono nolosha intii iga dhiman dhacdo sidan oo kale oo xanuun badan 15 daqiiqo ka yar ayay igu qaadatay inaan ku gaaro isgoyska kilometer 5 ee loo yaqaan Zobe ee magaalada Muqdisho aniga oo ka ambabaxay xarunta idaacadda Danan ee magaalada Muqdisho xilligaas oo ay nala galgashay guud ahaan dhismaha xarunta idaacadda Danan muraayadihii ayaa nagu soo qultay qiyaas ahaan waxa ay la noqotay in qaraxu uu ka dhacay halka aan ku sugannahay ama meel aan naga fogeen hayeeshee waxa aan aamin waayay in uu qaraxu yahay mid ka dhacay isgoyska Zobe oo masaafo ahaan si aadan nooga fog go'aan ayaan ku qaatay in aan u dhaqaaqo goobta uu qaraxa ka dhacay aniga oo gudanaya waajibaadkayga shaqo hayeeshee wixii aan la soo kulmay waxa aan ka dhaxlay hurdo la'aan iyo harso la'aan tani waxa aan ku tilmaami karaa qaraxkii ugu weynaa ee ka dhaca magaalada Muqdisho markii aan goobta gaaray run ahaantii waxa aad iigu adkaatay inaan ogaado in aan gaaray isgoyska Zobe iyo in kale sababtoo ah waxa adkeed in la kala garto dhismayaasha iyo wadada aad marayso dabka horaya daraadiisa daartii weyneed ee Zobe oo qaybta sare ka ololeysa goob u dhow isgoyska Zobe oo shidaalka lagu iibiyo oo horaysa ku dhawaad 30 gaari oo ay ku jiraan dadkii saarnaa oo meydad ah isla markaana gubanaya dhismaha hotelka Safari iyo dhismayaashii ka agdhawaa oo dhulka ku daatay hoostiisana ay ku jiraan muwaadiniin ku qaylinaya warna badbaadiya midii igu xanuunka badneed ee aan la kulmay ayaa ahayd dad nool haddana aan la badbaadin karin waayo waxa ay ku hoos jireen dhismaha hoostiisa hareeraha dhismahana waxa si aada uga ololayay dab aad moodayso in marba marka ka dambaysa lagu sii shubayo shidaalkii horan lahaa waxaana aad u adkeed in dadkaasi la caawiyo in ka badan 30 meed ayaan gacanteeda ku tiriyay kuwaas oo kala noqday kuwa wajiga ka burburay kuwa jirkooda gubtay kuwa kala go'ay xitaa oo ay adag tahay inaad fahanto xubnihiisa iyo xubnaha qofka isaga agyaala sida ay isku leeyihiin qof waliba oo aqliga u saaxiib ah iyo kuwa ka faalooda arrimaha masiibooyinka waxay garan laayihiin waxa ay ku tilmaamaan dhacdadii kilometer 5 ka dhacday 14 bishan October sanadan oo ahayd maalinkii shalay mid aynu isweydiino Muqdisho maxay galabsatay maatada sama dambiile baa anigu dhowr jawaab ayaa ii soo baxay hayeeshee wixii aan soo arkay waa wax maskaxda degay muddana aan iga guuri doonin قلبك